إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السجناتي حان ربا إن لو ذاقو شعبك تجمد قرعال تجمد قرعال أمان كذا الأمان والحقيقي عيدا مدى دولة الفدرالك قيبه ذكر الدون إيو كوا كلمة أي حقيقي حان ليا شعبك كليه نكسو لابتا قبوك يدحانتا دباتا aad waqti ku sugnaydeen oo dhibaatada ah ee idin kaystay dadka aan maaragtay naxariista lahayn ee idin kaysteen annaga ayaa u istaagnay alxamdulillah waxaan idin leenahay si nabad ah gudihiina ugu soo laabta waxaan kaloo rabaa halkaan inaan ka sheego nidaamka dawliga ah waa midka kaliya ah ee ummadda deeqa waa midka cid walbaahi ay rabto inay nidaam dawliya ay hesho kulleeytana ummaddaani ayadoo degan oo nabad iyo haysato nimco intaba oo ilaahay ugu taqaaya waxa soo gaaray dad dawladdiid ah oo dhibaato u geystay waxa inaan marka mar aan ka tanasulaynayo isa jirinin waxa waaye nidaamka dawladnimada ah iyo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno barkow iyo midkan dawliga ah nidaamkan dawliga ah oo aan ilaashano waa aan ku dhaaranay inaan naftanada aan u hurno oo aan maaragtay dalkeena iyo diinteena iyo dadkeenaba aan difaacano waxaan rabnaa marka cid walba oo isku dayda inay amniga iyo deegaanka ka jira iyo dawladnimadaba ay ku soo duusho in aan tilaabo adag aan ka qaadno ayaan maaragtay go'aansanay maadaama aan u dhaaranay dalkeena iyo dadkeena waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo kana qeexo cid walba ee dhibaatadii bulshada reer Qurceel iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dawladda maaragtay ku timid cid walba ee nimankaas geystay kala shaqeynaysay ma aan ka harayno haday afka taageertay iyo haday cod ku taageertay iyo haday maal ku taageertay iyo haday awood ku taageertay gacanba ku taageertay insha Allah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala tilaabo adag ayaan ka qaadi doonaa mana aqbali doono in inta deegaankii dawladnimadii lagu soo duulay la joogo xaafadaha ama magaalada in la joogo oo maaragtay si nabad lagu joogo inay suurto gasho oo sidaas lagu fakaro mid aan aqbali doono ma ahan waa mid aan maaragtay tilaabo adag aan ka qaadayno insha Allah ciidamada booliska ayaana si toos ah uga howlgali doona magaalada gudaheeda iyo kuwa nabad sugidda waxaanan maaragtay xaqiijin doonaa ammaanka waxaan si toos ah u howlgalaynaa oo aan cafinaynin dadka ka soo horjeeda dawladnimada ama dhibaateynaya hadii ay gudaha magaalada ku sugan yihiin iyo haday taafiyeeda maaragtay magaalada maaragtay meel ka baxsan ay ku dhuumaalaysanayaan waxaan kaloo rabaa inaan ciidamada qaymaha badan oo sharafta leh oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudugba aan uga mahad celiyo kuusha iyo qaymaha ay soo hooyeen iyo wacadkii dawladnimo oo ay mareen sida ay uga dhaweeyeen waxaan leeyahay mahadoo in ka gaarto waxaan rabaa inaan iraahdo kale qodob kale shacabka ku nool degmadan Qurceel waa dad aad u dhibaataysan waa dad aad u badan waxay maaragtay waqti tuurkaas ku jireen waxaan rabaa in ciidamadu sida ay u adeegayeen shacabkooda naftooda iyo dhiigooda ay ugu horaan inay shacabka u ilaaliyaan oo shacabka si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo waxay u dhimanayeen waa ayaga ay u soo dhaweeyaan hadii alla idmo waxaan kaloo ka rabaa inaysan xabad inaysan ridin oo magaalada taafaheeda iyo gudaheedaba wax xabad oo aysan ka dhicin maadaama dadku dad muddo xabad oo kor socota ay tahay oo dad iska wareersan ay yihiin inaan laga naxinin oo xabada lagu dur ridin ciidamada qaybahooda kala duwan ka codsanaya hadii alla idmo ciidamada saraakiishu sida sharafta leh oo ay sameeyeen oo mahad celinaya magaalada taafaheeda ay u geeyeen waxaan rabaa marka in aan u wada naxariisano hadii alla idmo shacabka dadka waxa ku jira dad waayeel ah
oo iska dhiigar iyo wax qabo hadii gudaha lagu soo celiyo qoryana ka kor dhacaan maaragtay halis ku imaan karto marka ciidamada hadii alla idmo waan ogahay waxaad u dhimanaysaan waa shacabkiina Soomaaliyeed ayagana ilaalinaysaan inaad xabado aan laga dul ridin oo maaragtay qoryo xabado macna dara aan la ridin ciidankana sidaas u baaqaya waxaan rabaa inaan ku soo kaabiyo hadii alla idmo annaga insha Allah waxaan mar walba u taaganahay inaan talkanaga iyo diinteennada iyo shacabkanaga aan difaacano waxaan rabaa marka inaan shacabka ugu baaqo inay ka fogaadaan sheekada malawaalka ah ee lagu qaraabanaya magaca Ahlus Sunnah wal Jamaaca Ahlus Sunnah wal Jamaaca ummadda dhan islaamka ah ma ahan mid dadka ummadda lagu laayo ma ahan waa inay ka fogaadaan waayo aniga hata in la hadlayo Ahlus Sunnah wal Jamaaca ahay ummadda islaamka oo dhan Ahlus Sunnah wal Jamaaca marka shakhsi wuxuu leeyahay ma ahan waa wax aan maaragtay magac tan qaas laga leeyahay oo tan gaar lagu gaarayo oo hadana tan shakhsiyeed lagu fushanayo waay mana aqbali doono insha Allah mar walbana waa u taaganahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno ummadana aan ka badbaadino xafiiska dawladda cid walba oo kudihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadana waxaan rajaynaynaa hadii alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii dawladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay oo jeebkiisa ay ka go'an waaye marka si sharciyana waa la xisaabtami doonaa waa jirta xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiin waxaan rajaynaynaa hadii alla idmo inaan cid kasto oo hawsha sameeydo waxaan naga la shaqeynayaa shacabka macluumaad badanna waan ka haynaa iyagana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabtano idinka ma jirto saldhigan wax maxaabiis ah ee loogu yimid nimankii halkan yimid oo ummadda dhibaateeyay ayaana maaragtay dadkii meeshan ku xirnaayay oo ama tuugada ahay ama maaragtay gacan ku dhiglayaasha ahay oo maxkamaduhu xukumeen dhamaantood iyaga ayaa maaragtay meesha ka bixiyay marka insha Allah cid walba hadee qalad ka shane waa mid aan looga hari doonin idinka Ilaahayna ayaga dibka geystay iyo dhamaantood waxaan rajaynaynaa in maxkamad ka soo muuqdaan insha Allah